أرتيتا تيم كان كوين أرتيتا تيم كان عيارتودا لسكو كانوا دم معمولي كرو أرتيتا سيجا أسقل دايو أو ليفل كيسي معهن أرتيتا ومعهن معنا كوجولي سكر هولاك بالمليجا هذا لا صدق تاجرش أرسنال على حال يصلح مراي إلى إساكي إذا عاد توك سبورت ولا سكول جيه سودو هذا صاحب يال أربعين مقال كان وحيرك إلى هذا كلهم كيشلي أسبوع أرسنال مركي لا عيارتي كوحدة بيب كوارديولا هدية مركي هذه كورس أنا صوب بقطع والله مع كاعو سنين بيت كفلو دهديد وقال كان اللاك بدن أسيتي سوق جار صاحب بدن هدية دوري لجوكتي وكم ما سنت على جوجيس هذه السنقات كذا في شركة صاحب هذا لو سودو هذا وحيران كذا حقا أقول ليه إنه وحير كذا هربا كلهم كي أسبوع مايكل أرتيتا حق مي اللي تغييراش أرسنال سوق الأوجي هاي شخص أنا كور مش كوكينه إنه دهان تيم كان وكويه أرتيتا عيارتودا لما لسكو كيني فكر إنه سكو شاندين كو سمي وصو صار بيس تيم كي أوجو فينا بيري شالي وحي داعي مايكل أرتيتا سوق غوريغي سكو عيارايو إنه بيب كوارديولا ومركي إيجو رئيس بيب كوارديولا تيم مان سيتي أو سيدان كتعباسن أنا شالي ما يسان أهين سوق إمارات ستاديوم كو عيارايو إنه كعبصدو وسدح قدح أو لح صوغر مايكل مورينو ما لهين بشالي إن لغو صوب بلابو لأنه كأرسنال تراس هادنا موصل لهين إن لغو صوب بلابو بلسة معانيك أرسنال وحوب اسكد علي هيبا نين اللي يرادو مايكل مورينو ونقناي إنه اسكو ودن تيم ونقناي إنه اسبين كالي ماذا بلسة هنوقص بإنها قدها أقل عن سورة دينا إنها اسكو فاميلي تيم بس وحا كراعيسا مقع مايكل هدي لو مايكل أرتيتا سيغانا مايكل مورينو اللامية معنا إسبانيش هو أقناي إسبانيش أرسنال قد كده حميدة معموله سبمندي على ده اسكراف وأرتيتا إيسي أسوء إيبسي واي أسوء إيبسي إيسي واي أرتيتا إيسي أسوء قارتي هدي على الاستعمالين كل مدى وبين إيسي مان سيتي تفي عنه يقنا مايكل أرتيتا إيسي وحقوب شلي لها إنها تكسب بعضه وما وصل لهين إنها بنج دكتي ونقولها مايكل مورينو اسكو ودناتيين اسبينا ككنتي بلسه maxaad ugu soo bilaabaysaa kulan aad ku ciyaaraya gurigaadii taageerayaashaada u haysto taageerayaasha Arsenal xaq ay u leeyihiin shalay leen abkiyo dhan iska qalday oo Man City lagu garaaci karay shalay waa arkeen macallin Pep Guardiola difaac caadi u galay ciyaaryahankii gool ku dhaliyay xataa Haaland wuu bedelay shan dhaxo galay gadaal shan difaac galay wuxuu galay shan difaac iyo shan qad dhexe soo galay ciyaarta markii si dhamaanaysa hala markii la bedelay dhaxda la soo buuxiyay difaacna uu buuxsaday shan difaac iyo shan dhexe macnaheedu waxay tahay Arsenal ataageedan ka baqa oo markii la keenay Bukayo Saka iyo Ise qalad ahayd ba ciyaarta in lagu soo bilaabo labada nin ee Trossard iyo Michael Moreno bas Arsenal iyo Michael Arteta taageerayaashooda isku dhac badan meeshaas ka imaadaan haddii aad dib ku xasuusiyo waxaan ku dhahay director ka cusub ee Arsenal la keenay ee lagu magacaabo Andre Berta Michael Arteta muddada qorta ka saaray dhahay sababtoo ah boss waliba wuxuu u keenay laba ciyaaryahan oo aan kala dhicin macnaha mid kale bedel mid kale soo geliya ka daran sida daraadeed Michael Arteta waxa shalay wax yar ka qaldantay Michael Moreno inuu keeno laakiin kaas wuu iska jecel yahay Premier League markaa rabtid inaad ku guuleystid waxa u baahan tahay geesinimo waxa u baahan tahay nasiib waxa u baahan tahay oo kale inaad ku ciyaartid gurigaada markaad la ciyaarayso waxa Big Six-ka inaad saddexda dhibcood aad tirsan kartaa laga rabaa away markaa ku ciyaaraysidna dhaxda soo buuxi hal dhibic si Pep Guardiola uu shalay sameeyay hal dhibic ka badan Ise inuu shalay ku soo bilaabay ahayd Declan Rice iyo Subamandi ayar waxa ka hormarnay ninka la yiraahdo Ise 90 minute ciyaaryaankaas haddii xataa uu 60 daqiiqo ciyaari lahaa kubadaha ka dhex bixinta dhan way fudaaleed laakiin Arsenal shalay dhan waa arkaynay wuxuu dheelayeen cross oo ciyaaryaanka number 9 ugu ciyaaro Gyökeres kubada dhan teesada nin la yiraahdo Cavadiol in la yiraahdo Diaz teesada ka hormaray oo madaxiisa moo soo gaarayna sida daraadeed Gyökeres wuxuu u baahnaa nin turu u dhex bixiyo maxaa turu laga dhex bixiyaa khadka dhexaba jam ka dhigta oo 3-6 adheelo saay warmeen nimanka soo gaarsiinaa ninka Striker Arsenal niyo macaankooda shalay dhibcaha faraha ka bixiyay waxaan qarnaa malaha anaka kubadda hadaan falaqeynayno runta ka sheegaynaa Arteta maxay kula tahay booskiisa miyuu way doonaa se kulamada soo socdo ciyaaryahan walba booskiisa ciyaarsi doonaa oo Michael Moreno mar dambe kugu soo celi doono
ra'yigaas haddaa qabtid qaybta hoose nala wadaag shalayna dhibcaha Arsenal miyay u qalmeen 3 dhibcood inay qaataan intaas ku soo gabagabeynaa maanta muuqaalkaygii aan ugu hadlaayay kulanka isbuuca haddii taa markaad kugu horeysa aan soo booqato Allah waxaan kaa codsanayaa inaad page-ka follow dhahdid laagtaada u baahanaa si u gaara saaxiibo badan sii share garay oo saaxiibada la wadaag inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo